bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalahayga qaaliga kusoo dhawaada channelkayga meel kastoo adduunka dacaladiisa ka joogtaan channelku waa channelkiina fadlan haddii ay ugu cusub tihiin meesha gaduudan oo subscribe-ka ku qoran tahay taabo alamkana ha iloobin inaad furatid si aa ula socotiin cashar walba aan soo geliyo maantana walaashiin maxay idiin wadaa asxaab waxaa idiin wadaa rootigan quruxda badan oo baroonka maasha allahda ah oo eglaska ah wax ukuna laguma duwin saanuun u qurux badan yahay sidii aan u hagaajiyay iyo waxyaabihii aan ka hagaajiyay haddii aad jeceshahay inaad ogaatid fadlan fiidiyooga dhameyso haddana inta waxaan ku haysanaa baaquli weyn hadduu ilaahay yiraahdo waxaan kusoo shubayaa caano halkan waxa igu jiro waa koob caano qandac ah inaa qaaciis u yara jeedina rajeyna insha Allah intaasaan ku shubayaa haddii aan u baahdo anaa gadaal ooga darsan doono halkan waxaan ku haystaa waa 3 qaato batar ah waa subag qofkii subag haysto ama saliid uu isticmaal insha Allah caanaha qandacaan ku dhex shubeena hadduu ilaahay yiraahdo si uu noogu dhalaalo waxaan kaloo ku shubayaa yeast qaadada yar oo teaspoon-ka waa taasaa hadduu ilaahay yiraahdo hal iyo halfkeedan ku shubaneynaa oo yeast ah waxaan kaloo ku shubayaa insha Allah sokor waa qaadada yarta afarteeda 2 qaado waay markaas insha Allah waa 2 qaado qaadada weyn ah waxaan kaloo ku shubayaa wax yar oo cusbo ah oo aan test ugu sameysanayna insha Allah waa qaadada yar halfkeeda maasha Allah walaalahayga qaaliga hadda caanihii iyo subagii iyo faxisadii iyo sokortii iyo cusbadii way isugu keen jiraan waa diyaar waxaan ku soo darsanaynaa burkeeni haddii ilaahay yiraahdo walaalahayga qaaliga halkan waxaan ku haystaa koob iyo bar bur ah camal waa iska 2 koob yar yar hadduu ilaahay yiraahdo nus kiilo camal waa insha Allah dhaxdan iska gelinaynaa si fiican u soo qasanaynaa kadib aan isla arki doonaa maasha Allah walaalahayga qaaliga waa u jeedin sida burkeeni u qasanay wuu yara adag yahay caanihii koobkina intaas yartaa ka hartay insha Allah intaan yar haddana si fiican u soo gelinayna oo isku soo laabanayna maasha Allah walaalahayga saasaan burkeeni u soo qasanay bur waa qasida si fiican oo u soo qasnaa duu ilaahay yiraahdo marka waxaan sameynaynaa caagan wax yar oo saliid marmarsanayna insha Allah kadibna burkeenan dhex dhiganaynaa isla socono maasha Allah intuu noo faxayaan sugeynaa duu ilaahay yiraahdo nus saac hal saac intuu kuugu soo faxo waxaa la rabaa insha Allah inuu double noqdo hadda waxaan sameynaynaa duu ilaahay yiraahdo bacda jikadan ku daboolanaynaa kadibna markuu noo soo fuuro isla arki doonaa maasha Allah walaalahayga qaaliga saacad kadib burkeena waa u jeedina u maleynayaa siduu noogu fuuro saasuu noogu qamiire burka waxaa la rabaa jileecino intaas ahaado waa u jeedina u maleynayaa si uu kala jiidmaayo maasha Allah tabaarakallah haddana waxaan sameynaynaa hadduu ilaahay yiraahdo burkeenan fidsanayna insha Allah maasha Allah walaalahayga waxaan u kala goosanaynaa dhaxbartamaha saa uga goynaynaa kadibna waxaan ka dhigayaa 9 xabo oo isleeg hadduu ilaahay yiraahdo la socdo wanaagsan maasha Allah walaalahayga saana u soo jaranay intaasoo xabo noo noqday hadduu ilaahay yiraahdo geesaan dhiganaynaa kadibna hal aan u fidsanaynaa insha Allah maasha Allah walaalahayga halkaas xabaa soo qaadanay insha Allah waa fidsanaynaa saana u fidsanay kadib waxaan sameynaynaa saasa u soo laabaysaa insha Allah saasa u soo laabaynaa waa u jeedina u maleynayaa saasuu diyaar ku yahay maasha Allah waxaan rabnaa rooti oo eggless ah oo ukun lahayn soft inuu nooga soo baxo insha Allah maasha Allah walaalahayga saasa u soo fidsanaynaa kadibna saasa u soo laabaysaa haddii ilaahay yiraahdo waa diyaar haddana haddii ilaahay yiraahdo rootigeeni anaa saa ku soo dhameynaa insha Allah kadib markaan soo dhameeyaa isla arkeynaa asxaabay halkeena xabo u dambeeyay waaye maasha Allah saasuu diyaar noogu yahay rootigeeni haddii ilaahay yiraahdo haddana waxaan soo qaadanaynaa
saxankii aan saari lahayn insha Allah. Waxaan isla aragno. halkan waxaan ku haysanaa saxankii aan la gelin lahayn foornada. hadduu Ilaahay yiraahdo wax yar oo saliida marmarinayna insha Allah. markaan saliida meel walba ka marino hadduu Ilaahay yiraahdo rootigeeni aan ku safanayna isla aragno. maasha Allah walaalahayga saas u dhigeena. hadduu Ilaahay yiraahdo space aan siinayna. waxaan rabnaa inuu space helo hadduu Ilaahay yiraahdo uusan isku dhadhawaanin. haddana waxaan saaranaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo wax yar oo dabool ah. waxaan rabnaa inuu xoogaa yar noo huuro 15 daqiiqo insha Allah. walaalahayga qaaliga haddana 10 daqiiqo waa sugnay hadduu Ilaahay yiraahdo. halkan waxaan ku haystaa wax yar oo caano ah. insha Allah waxaan sameynaynaa rootigan kor ka marmarinaynaa. rootigeena sida ogtiin eggless waaye, ukun ma lahan, wax ukun kuma karinin. hadduu Ilaahay yiraahdo dadka vegetarianka dadka ukunta aanan cunin waxay sameyn karaan sidaan u soo qasay ukunta bas ay ka daynayaan. marka haddii aan ukun hore ugu soo dari lahay ukunta meesheeda jaalaha ah iyo caano yar isku qaraaci lahay kor aan uga dari lahay. hadda maadaama ukun aan caaw looga baahneen meeshaan hadduu Ilaahay yiraahdo cashada waxaana leh dad vegetarian ah oo aanan cunin ukuntii hilibka. marka la xishmeynaa ma insha Allah iyadoo mar kaleeto horena waa usoo geliyay mar kalena waa soo gelin doonaa dhisayma kaleeto iyadoo ukun lagu daray hadduu Ilaahay yiraahdo. marka caanaha saas wax yar korka uga marinaysa hadduu Ilaahay yiraahdo wuxuu siinayaa kalar qurux badan markuu dubmo. isla arki doonaa anaa saa usoo wada marinaa insha Allah. markaan soo mariyaan isla arkeen. maasha Allah caanaheeni waa soo wada marmarinay. haddana hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan gelinayaa foornada insha Allah 75 degree 20 minutes ama 25 insha Allah. markaas kadib waan isla arkeynaa siduu noogu soo baxo rootigeeni. maasha Allah walaalahayga qaaliga rootigeeni waa kala soo baxnay. waxaan korka ka soo saaray bacda aluminiumka si uu noogu huuro. bacda aluminiumkan ka qaadayna insha Allah. sidaas maasha Allah tabaarakallah rootigeeni sidaas quruxda badan uu noogu soo baxay walaalahayga qaaliga. rootiga markii dabka laga soo bixiyo wuu yara adag yahay. halkan waxaan ku haystaa waa butter waa subag hadduu Ilaahay yiraahdo korkaan ka marmarinaya. sidaasaa korka uga marmarinaya insha Allah. haddii aadan butter haysanin ha isku dhibin subag marso. haddii aadan subag haysaninna saliid insha Allah. waxaan rabnaa in xoogaa yar noogu qoqoyo hadduu Ilaahay yiraahdo. saasa u marmarinaynaa insha Allah subag yaraay ama saliid wixii aad haysatid hadduu Ilaahay yiraahdo. hadduu Ilaahay yiraahdo wax yar huurinaynaa kadibna saxankan ku soo saaranaynaa insha Allah. isla aragna sidoo noogu soo baxay. maasha Allah tabaarakallah walaalahayga qaaliga rootigeeni sidaasuu noogu soo baxay oo jileeca badan waa u jeediina u malaynayaa. dhexdiisana wax ceyrina ma lahan. maasha Allah tabaarakallah. fadlan fiidiyogayga haddii aad ka heshiin like wixii talo iyo tusaale comment. haddii ay ugu cusub tahayna fadlan ha iga iloowin inaad meesha subscribe-ka ii taawatid alamkana furo si aad ula socotid cashar walba aan soo gelino insha Allah. waa walaashin Maryan Room Cooking and Beauty oo idin leh bye bye nooli kulante.